bismillaahi raxmaani raxiim ramadaan kariim dhammaan muslimiinta inkastoo bil ramadaana lagu jiro haddana bishii dhammaatay ee shacbaan waxaa gudaha soomaaliya ka dhacay dagaallo iyo fatahaado dagaalada ayaa ahaa kuwo maamullo iyo beelo walaalaha u dhexeeyey 15 bisha shanaad waxaa magaalada Tukaraq ka dhacay dagaal dhex maray maamulada Somaliland iyo Puntland kaasi oo khasaare naf iyo maal la geystay ilaa imikana la isku horfadhiyo iyadoo ay tahay wax laga xumaado in dhiig islaam uu daato waxaa magaalada Ceelaf Weyn ka dhacay isla bishii Shacbaan dagaal dhex maray beelo walaalaha oo halkaasi wada dega dadka Soomaaliyeed ayaa dhexda u xirtay sidii loo joojin lahaa colaadaha dagaal iyadoo gurmad loo fidinayo dadkii waxyeeladu ay ka soo gaartay fatahaada webiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne ku fatahay dadka ku sugan qurbaha ayaa waxa ay aad ugu xumaadeen dhilooyinka colaadeed ee ka soo yeeraya Ceelaf Weyn iyo Tukaraq iyadoo sidoo kale damqasho naxariiseed ay ka muujiyeen fatahaada webiga Shabeelle jaaliyada Soomaalida Bielefeld ee wadanka Jarmalka iyo waaska guud ee shanta Soomaaliyeed ayaa waxay soo qaban qaabiyeen kulan ku saabsan colaadaha ka jira deegaanada Ceelaf Weyn iyo Tukaraq iyo fatahaada webiga Shabeelle waxaana ay sheegeen inay tahay wax laga xumaado dhiigga maanta daadanaya waxayna maamulada Somaliland iyo Puntland ugu baaqeen in sida ugu dhaqsiyaha badan colaadaasi loo soo afmeero dhanka kale waaska guud ee shanta Soomaaliyeed iyo guddiga jaaliyada Soomaaliyeed ayaa muddadii uu kulan ku socday waxa ay ka hadleen in gurmad loo fidiyo dadka waxyeeladu ay ka soo gaartay fatahaada webiga Shabeelle gaar ahaan dadka degan magaalada Beledweyne waxaana ay u xilsaareen guddi ka shaqeeya sidii gurmad dhaqaale loo gaarsiin lahaa dadkaasi dagaalka sokeeye oo ka socda inaynu baaq nabadeed ka dirno deegaanadeennii Ceelaf Weyn waxaad ogtihiin walaalayaal inay ka socoto dagaal sokeeye oo laba beelood oo walaala ah ay halkaas ku dagaalamayaan intii muddo waliba dagaal soo noqdo dagaalkaas waxaanu leenahay halka walaalaha ku dagaalamaya baaqa aan u jeedinaynaa wuxuu yahay walaalayaalow dagaal wiil kuma dhasho wiil baa ku dhinta dad ehelaha tihiin dad walaala abaa tihiin dad darisaha tihiin dad wax walba ka dhaxeeyaan baa tihiin lama joogo maanta xilligii ama dhul ama wax la mid ah maanta wiil ku dhiban lahaayeen ma joogno 2018 ama 2020 baanu maraynaa waxaan idinka codsanaynaa oo baaqa iyaga aanu ku salaysan yahay annagoo dhammaan jaaliyadda Bielefeld ee wadanka Germany ah oo gudoomiyaha iyagii Cabdiraxmaan Axmed Ismaan Cabdiraxmaan Jaahuur uu hogaaminayo na dhex fadhiyo waxaanu cod dheer ku leenahay dagaalka la joojiyo dagaalka waa codsanaynaa in dagaalka la joojiyo anigoo ugaas Cabdiweli ugaas ukun yaana hadda koow bilaabaya inaanu baaqaas nabadeed aanu halkaa ka dirno oo codsigaasna laga aqbalo nabadoonada salaadiinta boqorrada iyo dhammaan isimada dalalka jooga waxaanu ka codsanaynaa arrintaas inay si kal iyo laaba u galaan si walaaltinimo aan arrintaa lagu dhameeyo xabadana la joojiyo dadkana aan la laynin aan la islaynin qodobka weeye waa baaqa koobaad oo aanu rabno inaanu halkan ka cadayno inaanu ka xunnahay inay aad iyo aad noo dhibayso inaanu ma garanaysaa aanu ka seexan weynay saasaanu baaqaas halka qodobka koobaad u dirnay qodobka labaad waxa weeye walaalayaal waxaad ogtihiin Beledweyne meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah gaar ahaan Beledweyne iyo Jowhar dhibaato culus inay ka dhacday dhibaatadaas oo fatahaad aad iyo aad dadka dhib badan ugu geysatay oo dadka geedaha saaran yahay waxaanu ku baaqaynaa waxay tahay dadka Soomaaliyeed ama qurbaha joogay ama gudaha ha joogay horta marka koobaad waa u ducaynaynaa waxaan leenahay ilaahay ha ka badbaadiyo masiibada marka labaadna baaqaan diraynaa wuxuu yahay walaalayaal dadka ha loo gargaaro oo ha la isqaamo oo jaaliyad iyo group iyo gobol iyo degmo dadka waxa loogu taro nagu hadaanu nahay jaaliyadda Bielefeld oo Jarmalka arrintaas waanu isku soo qaadnay shirkaan ahayn baanu iskaga soo qaadnay guddina waa u qabanay in guddigaas Jarmalka oo dhan la wadaagana waa rajaynaynaa
arrintaa baaqaas waxaanu leenahay dadka ilaahay wax siiyey oo dadka wax tara war dadka ilaahay wax siiyey oo dadka wax tara baanu leenahay waa inay lacagaha meelaha khaaska lagu bixinayo weliba bisha ramadaan war wuxuu haysto bisha ramadaan ku aadiya halkaas qodobkaas weeyo waa qodobkii labaad weeye qodobka saddexaad walaalayaal waxaanu halkaan baaq uga daraynaa waaqaanu oo kale aan hadda ka hor aanu ka dirnay annagoo ah jaaliyadda soomaaliyeed ee Bielefeld ee Germany waa ayadoo weylniman ayadoo dhibaato jirin laakiin markaa buuq yari ka socda tukarraq baanu hadda ka hor ka soo jeedinay baaqaas baaq lamida baaq ayaga baaq lamida wiilal ma dhimanin wiilalna ma dhaawacnin markaanu walaalayaal baaqaas soo jeedinayni iyadii baan kii aanu ayaantaa hore dirnay mid lamid ahaanu diraynaa iyadoo maanta aan filayo in dhaawac iyo dhimasho ay jirto waxaanu leenahay dagaalka tukarraq waa tii hore oo kale waa taan ceel afka kaga maamaanay dagaal wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho waxaanu codsanaynaa dagaalka in la joojiyo inaan dadka la barakicinin inaan dadkaas loo turo hooyooyinka iyo carruurta iyo haweenka in loo turo inaan hubka waaweyn iyo borobareemka meeshaa ka socda aan laysu adeegsanin iyo dhibaatada uu leeyahay waxaanu soo jeedinaynaa oo baaqa iyaga ku salaysan yahay in dagaalkaas shuruudlaan lagu joojiyo walaalayaal waxaanu leenahay isimada waxgaradka aqoon-yahanada dhammaan dadka saaxiib caqliga ah dib ha u fiiriyeen tukarraq waxa ku jira iyo waxa laga dhibo iyo waxa yaalla iyo sida dhimashadu uga dhacayso waxaanu leenahay arrintaa dib ha loo qaybeeyo waxgaradkoo arrintaas soo dhex gala arrintaas ha la joojiyo dagaalkaas ha la joojiyo tukarraq isimadu ha joojiye oo waxgaradku ha joojiye oo aqoon-yahanadu ha joojiye oo haweenku ha joojiye oo waxaanu leenahay dagaalkaas si kaliya laabaanu uga xunnahay in dagaal intaas la ego uu dhaco horeyna waanu uga talinay waxaanu leenahay walaalayaal dagaalka joojiya yaa meeshaa dagaal ka dhici dambe dagaalkii intaa hore ka ekaado war dadku waa isku dhacaa laakiin muhiimadu waa in nabadi ka dambaysa waxaan anigu hadalkayga ku gabagabaynayaa oo baaq walaaltinimo iyo mid mas-uuliyeedba u diraya madaxda labada meelood oo dagaalamaya kow waxaan ka dhigayaa mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha somaliland waxaa tahay madaxweyne waxaa tahay aqoon-yahan waxaa tahay nin oday ah in halkaa dagaal ka dhaca ka baaqso qaybta nabadana ka qaado cabdiweli maxamed cali gaas waxaa tahay aqoon-yahan waxaadna tahay nin odaya inaad halkaas dagaal inuu ka dhaca ka baaqso halkaasna dadka ka nabadeeyo meeshii aad dagaalka nabad ku bedelaanu idin leenahay arrintaasina codsi weeye baaq nabadeed weeye waxaana anigu ku gabagabaynayaa baaq nabadeed baanu halkaa u fadhinaa saddexdaa qodob baanan go-aansanay inaanu baaq ka dirno waana wada hadli doonaa mas-uuliyiinta iyo jaaliyadda iyo aqoon-yahanada halkan joogaa inta saddexdaa qodob waxaanu codsanaynaa in laga aqbalo baaqa nabadana siduu yahay loo qaato waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan ummadda muslimiinta ah iyo soomaalida meel kastay joogtaba waxaan ku hambaleynayaa bisha ramadaan inoo bilatay ilahay khayrkeedana soo xejiyo maanta waxaan isugu nimid jaaliyadda Bielefeld iyo ugaaskeena guud ee ugaaska Soomaaliyeed cabdiweli ukun maanta dhalinyaro iyo mas-uuliyiinba annaga wakiil ka ah inta maqan ee Soomaaliyeed ee jaaliyadda ka mid ah inaan halkan ka dirno baaqaas ugu horeeyo colaadda ceelaf weyn ama meelaha ay wada degan ee soo noqnoqotay inaan gaadhsiino kelmadaan ku leenahay ee ah inaan colaad waxba tarayn lagu dhimanayo horumarna aan lagu gaadhayn colaad maanta Soomaali way ka daashay waan la wada garanaya yar iyo weyn waxna tari mayso waa waxa khayrkeena naga reebay saa daraaddeed waxaan ka seexan weynay oo u damqannay inaan ka hadalno gaarsiinana waxaan ka codsanaynaa dadka Soomaaliyeed oqaasha culimada mas-uuliyiinta marwooyinka iyo mudanayaashaba in loo istaago si loo baajiyo dhiig dambe oo daata
ama in qofku dhinto ilaah uu baajin karaa laakiin loo gurmado baaqaas waa kii Ceelaf Weyn ee dirinta ka socota ee soo noqotay waxaan kaloo doonayaa in halkan iyadana aynu isku dhiirigelino Soomaaliya waxaa ka dhacay duufaano iyo fatahaado Soomaaliduna waxay ehel isugu tahay meel kasta ay joogto waa shanta Soomaaliyeed inay isu gurmadaan markii dib dhaco Soomaalinimadana ma faraysa shirki maalooda jaaliyadda Belfield waxaan ku go'aansanay inaan wixii awoodeena ugu gurmano dadka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ee duufaanadu halakeeyeen fatahaadu halakeeyeen iyo hadda duufaanada la sheegay Soomaalidu inay degto meel ka mid ah in ku soo wajahan in dadka qurba jooga iyo inta gudaha joogtaba la isgarab istaago mid wax yar hay mid wax weyn hayaba inta Ilaahay u dhiibaba la isu gurmado anoo ka Soomaali ahaan ka jaaliyad ahaan shirkeenii iminka maalmood waxaan ku go'aansanay inaanu wixii awoodeena ah aruurino una dirno waxaan xil saarnay ugaaska Soomaalida guud ugaas Cabdulla Ukun iyo gudoomiyaha golaha dhexe ee jaaliyadda Belfield Sheekh Ahmed labada mas'uul ayaa nooga xusaaran in la shaqeeyaan codsanayna qurba joog Soomaaliyeed meel kasta joogaan waxaan ka codsanaynaa in dadka walaalada dhiban u gurmadaan taasna waa tii gurmadka waxaa saddexaad ah oo rabaa inaan ka hadalno qodobka saddexaad dagaalkan tukarra dadka badan ku dhinteen intii dhimatay horta Ilaahay u naxariisto intii ku dhaawacantay Ilaahay bogsiiyo maanta 2018 ah dagaal dow maaha wadooyin badan oo loo maro oo nabad lagu gaari karo ayaa jira oo ay ka mid tahay haddii 5 sano dagaal socdo ama 10 sano socdo ama 10 bilood socdo aakhirka waa tii la wada hadlo lagana gayoon maayo dagaal inuu socdo saa daraadeed waxaan codsan lahayn ama ku baraarujinaya dadka walaalaha ah ee ku dhimanaya isku hor fadhiya isku dilaya inay wada hadal ku bedelaan dadku markay wada hadalna way heshiiyaan saa daraadeed dagaal hal maaha waan ka gami weyniyadana waayo dad walaalaha Soomaaliyeed ehel iyo xigaal ah in dhiigooda ku daato ma habboona bil Ramadaan oo barakeysan baa lagu jiraa bil cibaadada lagu jiraa in dib la isugu noqdo baaq nabadeed oo aan u jeedinayna walaalaha tuqurraqa ku dagaalamaya oo dagaal oo ummadda dhan ee la yaabtay ka dhacay dagaalkaas waxaa leenahay hala joojiya waxaa leenahay Ilaahay ha loo noqdo waxaa leenahay bilson ayaa lagu jiraa bil Ramadaan waaye bishaan in dhiig la daadiyo dhiig isagoo xaraam ah in dagaalkaas la joojiya wixii la sheegi lahayo baaq hore ayaa loo soo sheegay ugaaska ayaa sheegay gudoomiyaha ee jaaliyadda Belfield sheegay anagoo Xaaji Maxamed Xaaji Xuseen Macalin Garweynena hadda ayaan ku baaqaa waa sheegaa waxaa leeyahay ilmaha yaa la agoontayna walaalaha yaa la laayna rag yaa la iska dhamayna Soomaali waa Soomaali amba Somaliland ha ahaada amba Puntland ha ahaada amba Soomaalida Muqdisho ha ahaatee anaga waxaan nahay Soomaali oo dhan intaasaan ka koobanahay ilaa Djibouti ayaa ka mid nahay dadka baaqa jeedinaya oo maanta aan maqlihisiin oo aniga aan ku hadlayo afkooda ku hadlayo waa dad ka socda shanta Soomaaliyeed oo dhiigaas ka danqaday dhibkaas gubay dhibana haya hadda in ilmaha la agoonteeyo hublees u qaato waxa dabeelaha keenayo oo barakaca keenayo oo biyaha fatahaada keenayo waxay ka mid tahay markuu horeysa dhiigga la daadiyo walaalkaada dhiiggiisa oo aad gasho waxa waaye dhib ayaa ka qaadaysaa maana dheefka ma qaadaysi waxaa la yidhi nabada caanima ah war nabadda ha loo hoggaansamo culamo diinka aqoon-yahanka isimida walaalaha waxgaradka ah oo dagaalada ka xaraman u joogsada dagaalka hala joojiyo dagaalkaas hala joojiyo waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo oo si fudud loo joojiyo waxaan leenahay si degdeg ah dagaalka ha loo joojiyo labada hogaamiye oo dagaalka ka dhacay tuqarraqa
madaxda u ah labadoodaba hadday baaq nabadeed ay jeediyaan dagaalka waa joogsanaa cabdiweli calagaas muuse biixi labadiinaba dagaalka joojiye waa jooji kartiin dagaalka hala joojiye haddii la yiraahdo labadiina ka farantaa mooro madaxa liire inta kale maquno moorada madaxeeda waxaa weeye ninka hoggaanka weeye war hoggaanka iyo dagaalka joojiye ragga ha isku laaynana wax aad ka dheefaysiin malaha magacna ku heli maysiin oo maanta cod isku mid oo isku midib oo isku hal oo isku diin oo isku dad ayaa islaynaya idankeena hadda wax oo sharaf laga qaadayo ma jiro dagaal hadduu wax tiraayo oo mataqaanaa sharaf laga qaadayo kii hore usoo dhacay oo nin kasta ka qayb qaatay oo meel kasta tegay oo gacanta layskula tegay oo leesbara kiciya ayaa wax laga dheefi lahay maanta yacni wax nin la arko waaye arigu u yahay wixii ka dhacay marka waxaa leeyahay dagaalka hala joojiyo dagaalka labaad oo kale laga sheegayo ee mataqaanaa meesh ceel afweyn asagana waxaa leenahay walaalaha isdilaaya joojiya war joojiya dagaal sidiisaba wax shay xaaraam ah wax xun ma aha wax fiican ma aha wax xun weeye wax oo mataqaanaa nin rag meeteeye waayo wax naagaha asaay u saara waayo wax lagu kala tago waayo wax cilad abuuro waayo wax colaad abuuro waayo cilada tii hore ayaaba boogaheeda weli muuqdaan haddana mid dambe in laysugu soo noqdo oo lees dilo waxaan u aragnaa inay tahay meel ka dhac inay tahay khatar inay tahay mid oo aanan laga fiirsanin dhulka ma dhammaanayo dadkana ma dhammaanayo haddii laysku naxariisto oo walaalaha maanta isdhex maraan dagaalka la joojiyo war cirkana roobaa ka imaanaya gabdhahana wiilale dhalayaan marka nabadana waa hagaagaysaa xoolahana caanaa laga helaa adduunyadoo dhanba waxay noqonaysaa barwaaqo sidai culummadani ay sheegtay oo diinta macaanido annaga haysano diinta inoo maxamed ay sheegayso waxaan leenahay dagaalkaas baaq nabadeedaan ka jeedaheennaa hala joojiyo waxaan kusoo ganaanudaa in dagaalka la joojiyo sidiisaba wixii kale oo iyagana barakaca oo laga sheegayo ilaa beledweyne iyo buuriburdo arrimakeeda fatahaado waan ka wada hadalnay rag baan ku saarnay hadduu ilaahay yiraaha waana yacni soo afjara doonaa waxaa noogu daran midda ragga naga dhammaanaya oo maanta labada galbood oo Puntland iyo Somaliland war Puntland iyo Somaliland waxaa idin leenahay dagaalka joojiya si degdeg u joojiya labada madaxweyne oo hogaamiyaasha oo madaxda dagaalada socdaan ha joojiyaan dagaalka ilaahay ha ku noqdaan ilaahay ka baqa war magaciina kuma kordhayo inuu ku naaquso maahane sharaf ka qaadi maysiin inaa ku baaba'diin maahane waxaan leenahay dagaalkaas joojiya ilaahay yaa mas-uul naga dhigay ulul amr minkum amran aliira ninka mas-uul hadduu yahay waxaa u sharaf badan inuu nabad ku hagaago inuu nabadda raadiyo ayaa u qurax badan maanta oo ah maalin lagu jiro bisha barakaysan ee Ramadaan waxaan halkan isugu nimid inaan halkan ka dirno baaq nabadeed annagoo ah mas'uuliyiintii magaalada Bielefeld iyo Jarmalka gebi ahaanba waxaa kaloo sharaf weyn noo ah inuu maanta fadhiyo ugaaskeennii guud ee shanta Soomaaliyeed ugaas Cabdiweli ugaas Ukun sidoo kale gudoomiyaha jaaliyada gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadaha Jarmalka ahna gudoomiyaha Bielefeld gudoomiye ku-xigeenka iyo anigoo ah xiriiriyaha jaaliyadaha Jarmalka waxaan halkan ka cadeynaynaa inaan baaq nabadeed ka dirayno dhibaatooyinka soo noqnoqday ee ka jira deegaanada Somaliland iyo Puntland waxaan kale oo aan rabnaa inaan halkan ka sheego qodobkayga labaad oo ah dagaalada ka soo cusboonaaday deegaanada Somaliland ceelaf weyn iyo qodobka saddexaad oo ah fatahaadaha webiga Shabeelle uu ku hayo gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellada Dhexe magaala madaxda Jowhar taasoo ah meel dadkii deganaa ay ka barakaceen haddii aan ugu hormaro baaqa nabadeed ee maanta halkaan aan isugu nimid qodobada uu ku saabsan yahay waa saddexdaas qodob haddii aan kala qaado dagaalada ka soo cusboonaaday deegaanada ceelaf weyn waxaan leenahay waa dad walaala ah waa dad wada dhashay waa dad isku meel ka soo jeeda waa dad isku dhiig ah dagaalkaas waa in ay u istaagaan odayaasha iyo nabadoonnada deegaanka iyo salaadiinta annaguna waxaan halkan ka cadaynaynaa inaan dagaalkaas ka xunnahay annagoo ah jaaliyadii Bielefeld
waxaa kale oo aan halkan baaq nabadeed hore uga dirnay dagaalada ka soo cusboonaaday deegaanka Tukarraq 6 bilood ka hor ayay ahayd markii aan baaq lamida dirnay mid lamida ayaan diraynaa waxaan baaqaas ku leenahay cod dheer iyo cod gaaban sidii aan hore u sheegnayba in dagaalka la joojiyo shuruud la'aan maadaama bishii barakaysneed ee Ramadaan lagu jiro bisha barakaysnaana aan ku fiicnayn dagaal iyo wixii caqabad ku ah ummadda Soomaaliyeed dadka mas'uuliyiinta ee halka degan waa inay si shuruud la'aan dagaalkaas ku joojiyaan waayo waxa ku baabaayo waa hanti waxa ku baabaayo waa dhaqaalihii dadkaas haysteen waxa ku ka dhalanaya baraka waxa ku baabaayo iskuuladii waxa ku baabaayo mustaqbalkii dadka Soomaaliyeed waxa ku xirmaya isu socodka gaadiidka intaas oo dhibaato waa waxyaabaha laga dhaxlo dagaalada marka waxaan leenahay annaga mas'uuliyiintii Jarmalka iyo jaariyadii guud ee Bielefeld dagaalkaas waxaan uga soo horjeednaa si aad iyo aad u weyn qodobka saddexaad oo ah daadadka Webi Shabeelle uu ku soo rogmaday gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellada Dhexe aad iyo aad ayaan uga xunnahay waan u istaagnay markii ay arrintaas dhigaheena ku soo dhacday shirkii gudoomiyuhu uu qaban qaabiyay oo ugaas u joogay waxaan isla meel dhignay in halkaas loo magacaabo guddi dhaqaale ururin ah guddigaas oo dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan arrintan gaarsiiyo qof walbana wuxuu u awoodo oo tabartiisa oo halkaas maaragtay uga baxo sida la ajrigeed gudoomiyaha golaha dhexe ayaa loo xil saaray in karaasyada Bielefeld iyo agaaraheeda iyo inta magaaladeena degan ka baxsan inuu dhaqaalaha ka soo ururiyo magaaladan iyo agaaraheedana oo hadda aan degannahay oo gudoomiyaha ka yahayna waxaan xil saarnay inuu ka soo ururiyo wixii dhaqaalaha ama tasiilaada ee dadka Soomaaliyeed ee daadadku waxyeeleeyeen wax loogu qaban lahaa ugaaska Soomaaliyeed ugaas Cabdiweli ugaas Ukun taasoo ugaasku uu dhexda u xirtay ilaa iyo haddana hawsheedii uu ku dhex wado oo uu dad badan ay ilaa iyo hadda ay la soo xiriireen gudoomiyuhuna uu halkaasi ka hadlay uu yiri maartay wixii dhaqaale ka geysan karaa inay halkaa ka geystaan oo ugaaska ay la xiriireen marka baaqeenuna qodobkaas ayuu ku soo idlaanayaa oo qodobkii saddexaad ah marka ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan ka codsanaynaa dadkaas dhibaataysan iyo dadkaas dhibaatadu maartay laga soo sheegay intaba in maartay il raxmad leh lagu fiiriyo oo qofkii dhaqaale ka geysan karaa sida dagaaladaas lagu joojin lahaa qofkii dhaqaale ka geysan lahaa si daadadkaas soo rogmaday dadkaas masaakiinta taakuleen looga geysan lahaa intaba waa u furan yihiin ayaan leenahay mar koowaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraadba waxaan leenahay baaqeena waxaan ku leenahay war dagaalada hala joojiyo bismillah alxamdulilah nacbudu ونستعين ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا بسم الله الحمد لله إلهي أمهات سكره أمك أنا سوف كان أنا نبضة ما قبله بيش رمضان رمضان كريم أنا واحد من هايو رجيو ريا شيء أنت waxaan ku hadlayna waxay tahay inaan ummadda Soomaaliyeed meel bay joogto aan ugu baaqna nabad maadaama bil Ramadaan ay tahay dadka walaalaheena oo dagaalada ka dhaxayso in ay nabad ku wada noolaadaan dhulku waana deeqaa marka waxaan xoojinaa ugaas Cabdiweli ugaas Ukun iyo Adan Maxamed iyo Gudoomiye Cabdiraxmaan iyo Cabdullaahi hadalkay sheegeen oo ahay in aan maaragtay maanta dagaal loo baahneen oo annaga aan garawsanay inaan reer Bielefeld annaga jaaliyadda Germany ee Bielefeld inaan baaq dirno nabad in lagu wada noolaado nabadana wax ka qaadaysan ma jirto waxaan ku soo gabagabeynayaa waxay tahay nabada naas la nugale assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba marka koowaad waxaan ugu hambalyeeyaa bisha barakeysan ee Ramadaan waxaan u rajaynayaa Ramadaan maqbuul Ramadaan mubaarak halkan waxa isugu yimi jaaliyadda Bielefeld ee dalka Jarmalka waxaa jooga ugaaskii guud ee Soomaalida oo dhan Soomaalida Jarmalka oo dhan ugaas Cabdiweli ugaas Ukun iyo gudoomiyaha jaaliyadda Bielefeld ahna gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda guud ee Jarmalka iyo gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda Jarmalka Maxamed iyo Cabdullaahi waxa anigu aan ku darsanayaa baaq nabadeed oo loo dirayo
colaada ka socota Ceelaf Weyn iyo diriirta kale ka socota Tukarraq anu dhanka dhalinyarada dhalinyaro ahaan waxaan u dirayaa dhalinyarada wadankii joogta inay nabadgelyada ka qayb qaataan dhalinyarada wax baratay waliba jaamacadaha iskuulada intuba inay u istaagaan sidii ay diriirta qaybtooda u damin lahaayeen oo nabadgelyada u qayb qaadan lahaayeen intaa weeye baaqa aan ku xoojinaya iyo waxaan kaloo aan ku darayaa qaaraanka loo ururinayo ummadda wax ku noqotay beledweyne webiga rogmaday in iyadana si jaaliyadda ugu sheegtay inaan dhalinyaro ahaan diyaar u nahay iyaguna ka qayb qaadano dal iyo gudaba kolley baaqa laga jeedinay waxaan ku xoojinayaa baaqii hore jeediyeen ugaaska iyo guddoomiyaha iyo Sheekh Maxamed iyo Cabdullaahi odayaasha waaweyn ama mas-uuliyiinta jaaliyadda Bilifeed hogaaminaya baaqan laga jeedinayna waxa weeye waa baaq nabadgelyo oo lagu baaqana ummadda muslimiinta ee bisha Ramadaan ku dagaalamaysa Soomaaliya labada maamul ee meesha ku dagaalamay Tukarraq waxaan u sheegaynaa inaan baaq u soo jeedinayno in si nabadgelyo ah deegaanka sidiisii hore uu soo noqdo oo deegaanka la joojiyo bilaa shuruud waxaan kaloo halkan baaq ugu diraynaa oo kale waxa weeye dadka fatahaadu ku kaceen beledweyne oo iyagana in wixii lagu taakuleeyo iyo qodobka saddexaad oo isaguna Ceelaf Weyn oo laba beelood oo walaalo wada dhashay inay yaabtiga ay ku dagaalamayaan qodobka xoojinaya saddex qodob xoojinaya oo saddexda qodob baaq nabadeedna u dirno dagaalka soo cusboonaaday Tukarraq iyo magaalada Ceelaf Weyn oo dad beelo walaalo isku dagaalamayaan iyagana baaq u dirno oo dhiigga iyo dirirta ka socota meesha la joojiyo iyo dhibaatada ka socota kulli odayaasha dhameeyay baaqi ugaas Cabdullaahi ugaas kun Cabdullaahi iyo guddoomiyaha xiriyaha jaaliyadda guddoomiyaha ku-xigeenka iyo guddoomiyaha Cabdiraxmaan anaguna waxaan xoojinaa nabad lagu soo dabaalo xaaladda